gumaystaha marka la eego islaamka aad buu sanadihii dambe ugu soo badanayo waxaa la yiraahdaa maskax ahaan bay sanadka maanta u gumaystaan marka laga soo tago in qol la isku gumaysto sanadihii hore marka dawlado badan waxaa jira in lagu tuhmo in la gumaysto waxaa kamid ah dawladda Saudi Arabia oo boqortooyada Saudi Arabia oo waxyaabihii ka dhacayay bilooyinkii la soo dhaafay dadka aad ula fajaceen maadaama laga sameeyay bandhig faneedyo laga sameeyay waxyaabo shaadinta waxyaabo lagu caabudo marka gumaystihii waaga jiray gumaystahan hadda jira maxay kala duwan runtii gumaystihii xilligaas jiray gumaysta la yaqaan oo cad oo halkaas maraya oo kaniisada leh oo buu ahaa waxa soo xasuusiday sayidka ka baxay magaalada Berbera masaajidka Turkida ayuu dadka aad ula yani u dhihi jiray gumaysigu yani wax badan wada markii magaalada uu ka baxay magaalada Berbera markuu ka baxay oo banaanka wuxuu ku arkay iskool wiil dhiganaya wiilal Soomaali ah markaas uu yiri wiil kamid ah oo magaciisa weydiiyay magaca markaas uu yiri aniga John baa leedahay oo ka hor maxaa lagu dhihi jiray Ahmed wuxuu yiri tan tii hore waa ka daranta يعني wuxuu fahmay in uu jiro dhaqan bedelasho wiilkii John ahaa in loo bedelayo Henry Ahmed loo bedelayo yani qofkii dhalan rug uu jiro ninkan leeyahay Maxamed bin Salman waa nin ka baxay jaamacadda American University waa nin aad u qabtid yani dhaqankii Carabta ku dahaaray dhaqanka loo reer galbeed ah كيفن فكرايا dhaqaale uusan ka fakareynin inuu dhulkan yahay ardul qudus ama dhulkii la daahiray uu ka fakarayo hadii shidaalku naga dhamaado wadis next xageen aadina uu bis ka fakarayo uusan ka fakareen mustaqbalka dalkiisa markii aabihii oo dhintay 2015kii wixii ka dambeeyay waxaad u qabtaa isagu xukunka qabtay inuu waxaasi dhan uu bedelay oo hiigsi la yiraahdo 2035 uu sameeyay oo ah in laga dhigo magaalooyinka barakaysan ee Qudus iyo magaalooyinka barakaysan Maka iyo Madiina iyo in laga dhigo sida Las Vegas California dhismayaal casri ah magaalooyin la sameeyo shareecadu ka sareeyda si kala hadaan u dhaho magaalo qamri lagu cabi karo magaalo shineemooyin leh magaalo iyo lagu xanaanaysan karo magaalo dadku xor yihiin waa hada Sacuudiga kama jirin inay dumarku gaawaari wadi karaan in public qofku khamra uu keeni karo xaraan bay ahayd laakiin hadda wax walba waxaad u qabtaa inuu dhanka islaamka kasii baxsanayo marka runtii waxa waaye qatar weyn oo dunida islaamku mudan tahay in laga gaashaanto maxaa yeelay dhulka islaamka ee barakaysan Maka iyo Madiino dad ku dhawan billion dad ka badan ayay waxay u yihiin meel loo tukado oo qiimo iyo sharaf ku leh marka in la dhalan rogana runtii wax yani qofku u yeeli karo ma ahan marka laakiin fikirkaasi waa fikir nin wata yani shaar islaam laakiin shaar kale ku dahaaran reer galbeedka wax adag bay ka ahayd Sacuudiga in qamri lagu kala iibsado oo goob fagaara lagu arko dhawaan waxaa dhacday in wiil Soomaaliyeed ama nin Soomaaliyeed xabsi ku yaala Sacuudiga lagala baxo oo la dilo isagoo lagu eedeynayo in uu maandooriye wadanka soo geliyo sidoo kale waxaa jirta 2 maalin ka hor warqad soo baxday oo sheegaysa in 2036 koobka dunida ee lagu qaban doono boqortooyada Saudi Arabia ay mamnuuc ka tahay in qamri lagu cabo marka qamrigan aad sheegayso ee hadda banaanka u soo baxay kii qarsoona soo wali ma qarsoona maadaama hadda diidayaan in niyahow hadda inta Saudi Arabia aan ka warqabo maandooriyaha meelaha oo public ah oo ka mamnuuc laakiin meelaha oo dadka cadaanka iimaanayaan oo reer galbeedka ah uu u furan yahay oo wax walba ku sameeysanayaan Saudi Arabia waxa jirta qiso ka dhacday shirkado Jabaanisa waxay keeni jireen gawaari Saudi Arabia marka raaytooraha ay waxay ku soo shubeen mid kamid ah qamri marka baaritaan lagu sameeyay kadib baa la ogaaday in qamri ku soo shubaan shirkadii gawaarida geeni jirtay oo balaayin dollar Sacuudiga soo geli jirtay iska kansalay intaas waxay iska kansalayeen waxay ahayd inay ilaaliyaan yani qiyamka dadka islaamka ah maxaa yeelay dhulkan dhul daahirsan way qamri looma ogolo waa dhul yani asaga dhanba wada taariikh oo ummada intaas oo kala jaad ah taariikh ah marka laakiin hadda waxaad u qabtaa sidaas inay waay cusub Saudi Arabia uu bariyay
aysan hadda aysan rabin inay la jaan qaadaan yani islaamkii hore oo islaamka modernka ah yani nin baa laga sheegay siyaasiyiinta Soomaaliya waxa leeyahay Talyaani ah wariye Talyaani oo ahaa Soomaaliya yimid xilliga hogaamiye kooxeedyada markaas wuxuu la kulmay hogaamiye kooxeedyada oo qamri iska cabaya oo niman iska yani jawgooda iska jira markaasuu yiri haye ani waxaan rabaa hooyo islaamnimada nimankan inay qamri cabi karo haddana islaamiya يعني إسلامنimo maanta dhan wax la iska ilaalinayo ma rabi yiri ninkan waxa uu sameeyna wuxuu rabo uu sameeyna qof sameeyna haddana waa islaamnimadan rabo marka islaamnimada aan islaayahay Saudi Arabia oo ay rabaan wadamadan yani Maxamed bin Salman iyo tiimkiisa wadamadan qarbiga ku soo xabartay waxa waay mid aan la jaan qaadin noloshii islaamka waana wax aad looga baraarug laga sameeyo wadamada islaamka ah maxay qatar ay ku tahay